sheekada Maanafay oo uu qoray qoraaga caanka ee Soomaaliyeed Dr. Maxamed Daahir Afrax sanadkii 1981 waxa lagu tilmaamaa in ay ka mid tahay sheekooyinka ugu caansan laguna jecel yahay ee abid af Soomaali lagu qoray. dadka akhriyay qisadan Maanafay qaar ka mid ah waxyaabihii ay ku soo koobeen haddii aan dulmaro waxa ka mid ah Professor Andreyevsky oo yiri xardhidda sheekadan qoraa Afrax wuxuu ku muujiyay hibo farshaxanimo heerka ugu sarreeya awood suugaanyahanimo ayuu albaabka ugu furay dugsi laga baran karo sawiridda qofka aadmiga ah dareenkiisa dahsoon iyo jawiga ku xeeran waa sheekafaneed suugaanta Soomaalida gaarsiisay maqaamkii ay ka mudnayd suugaanta caalamka. Professor Ali Jimcaale Axmed waxa uu yiri sheeka casri af Soomaali ku qoran Maanafay waa tii ugu horeysay ee istaahisha magaca sheekafaneed. sheekadan Afrax wuxuu ku muujiyay hibo iyo karti maskaxeed aan caadi ahayn oo taariikhda gali doonta. Shariif Maxamed Amiin waxa uu yiri waa sheeko qof kasta gilgilaysa waxay soo xasuusisay xaafadeedii Xamarweyne ee aan ku koray waxayna hor keentay dad aan qof u garanayo. Maxamuud Geelle oo isna ahaa gudoomiyihii maxkamadda badbaadada ee Soomaaliya kaftan ahaan isagoo u handadaya qoraaga waxa uu yiri maxkamad u soo diyaar garow jaalle waxaad curiyaamisay shaqadii qaranka gabadhii xoghayntu ay ahayd iyo dhammaan shaqaalihii kaleba waxa maskaxda ka qabsatay Maanafay waqtigoodii shaqada indho iyo dhaga kale ma leh. Soomaalidu waxay tiraahdaa af jooga looma adeego balaan idinku wareejiyo hal abuurka sheekada Maanafay Dr. Maxamed Daahir Afrax oo ka warramaya halka ay ka soo jeeda qisada qaybta ay suugaanta Soomaaliyeed kaga jirto waxa ay ku saabsan tahay iyo habka ay u dhacayso. farxad weyn ayay noo tahay dhageystayaasha inaan ku jalbeebino qisadii caanka ahayd ee Maanafay intase aynaan dhex muquuran mawjadaha sheekada horta aan yara jaleecno halka ay ka soo jeedo. marka loo abtiriyo Maanafay waa hal abuur waxa ay ka tahay fan waxay ka sii tahay suugaan marka suugaani u kala baxdo tix iyo tiraab waxa ay ku abtirsataa bahda tiraab jifida ay ka sii tahay waa qiso ama sheeko casri dheer ogooba sheeko casrida u sii kala baxda sheeko dheer iyo sheeko gaaban dad badan uma kala baxsana waxa ay kala yihiin iyo waxa ay isu yihiin shantan aqoonside ee midba mid ka farcamo waa hal abuur fan suugaan tiraab iyo qiso. haddaan kala qeexno hal abuur waa hindisaha toolmoon ee ay curiso maskaxda aadmigu qaybihiisa waxaa ka mid ah fanka. fano maxaa tahay waa dareen ama fikrado qof hal abuurihii u tabiyey hab qurux badan oo loo qushuuco. tabintaas toolmoon aaladda uu u adeegsado qofka hal abuurka ahi waxa ay noqon kartaa muuqaal sida sawir la daawado waxay kaloo noqon kartaa cod sida muusig la dhageysto waxa ay noqon kartaa dhaqdhaqaaq sida ciyaar riwaayad ama film waxa ay noqon kartaa erayo la xardhay ama hadal la qurxiyey. waa taa ugu dambaysa qayb faneeda lagu magacaabo suugaan waa hadal macaan haddana xambaarsan dareen ku dhaqaajiya ama fikrado kugu duxa ama labadaba. suugaani waxay u kala baxday tix iyo tiraab. tixdu waa hadal lagu sargooyey miisaan iyo xaraf raac labadan afshaxan kolka lagu sii biiriyo humaagyo lagu hor keeno iyo hadal bilayaal lagugu laabdoojiyo tixdu waxa ay u sii dallacdaa wax la yidhaahdo maanso. macnaha maansadu waa tix lagu xardhay humaagyo lagu hor keeno iyo afshaxano maqalkooda dhagtu ku raaxaysato ama akhriskooda naftu u riyaaqdo. tixda ama maansadu waxa ay u kala farcantaa bayd dheer iyo bayd gaab. bayd dheerta waxaa hormuud u ah gabayga guurowga masafada iyo buraanburka. bayd gaabta badaheeda kuwa waqtigan xaadirka loogu isticmaalka badan yahay waa jiiftada iyo geeraarka. labadooda jiiftada ayaa loo sii isticmaal badan yahay waxaa soo raaca badda saarka ama guuxa. tixi waa taase aan ka tallaabsano. tiraabu maxaa tahay wuxuu u kala baxaa sooyaal iyo socoto. socotada waxaa hormuud u ah sheeko xardhidda
iyo riwaayad curinta. horyaalka sheeka xardhiddu waa qisada casriga ah, siiba waa sheekada dheer, waa halka aan u soconno amase ah yoolka barnaamijkan taxanaha noqon doona. sheekada Manafai ee aan idin hor keeni doonno waxa ay na tusi doontaa sida afka Soomaaliga loogu xardhi karo sheeko casri ah, sida af Soomaali loogu qori karo waxa afka Ingiriiska lagu yiraahdo novel, afafka Yurubta kale qaarkoodna sida Faransiiska loo yaqaan roman. haddaba inta aynan ku dhex lumin dhegaysiga sheekada, waxaa habboon in horta lagu yara iftiimiyo hordhac kooban, hordhac fududeeya fahamka sida ay qisadu u socoto. hordhaca noocan ah waxaa lagama maarmaan ka dhigaya laba sababood. tan koowaad waa dhererka iyo dhumucda sheekadan iyada ah. Manafai waa qiso aad u dheer, dhumucdeeduna aad u dhinacyo badan tahay. waqtigii ma saamaxayo in la wada akhriyo, laga fursan mayo in wax badan la soo koobo. sidaa awgeed, hordhacan guud iyo hordhacyada gaagaaban ee loogu gogoldhigi doono marba qaybta la joogo waxaa loogu talagalay inay kabaan dhegaystaha u fududeeyaan la socodka silsiladda iyo dhegaysiga sheekada ama dhadhansiga sheekada. sababta labaad, sheekadani uma qorra hab fudud ama habka fudud ee loo wariyo sheekooyinka hiddaha ama se loo tabiyo dhacdooyinka taariikhda. waa sheeko fanax, waa sawiro qofka loo hordhigayo sida filimada. habka ay u dhisan tahay waa saynsaab isu wada suran si doqorma garata ah, toos fudud uma dulundulcayso sida daadka, waa guulaama socotaa sida mawjadaha badda. adigoo mawjad dhex mushaaxayay ayaad ku war helaysaa mawjad kale oo intay tii hore ka hoos dhalatay kula baaxaad degaysa. waa habka loo qoro sheekooyinka casriga ah. hordhacyadu waxay kaalmaynayaan dadka aan caadaysan akhriska qiso noocan ah. guud ahaan dadkeennu suugaanta waxa ay kala socdaan uun dhinaca tixda. tiraabka aalaaba la yaqaanaa waa kan sooyaalka ah sida mahmaahda iyo sheeko carruureed. sheeko qoridda casriga ah waa fan nagu cusub, welina lala kaca kufayo. sidaa awgeed waa lagama maarmaan in dadka loo macneeyo lana taabsiiyo tusaale ku habboon in laga tilmaan qaato. hordhacan guud waxaan ku iftiiminaynaa 4 arrimood ama 4 arrimood ee saldhigga u ah sheeko casri ah. waxay kala yihiin milayga, meesha, mawduuca iyo muuqaal bilayaasha. milayga ama waqtiga qisadu sawirayso sheekadana la qoray waa dhammaadkii 1970 iyo bilowgii 80. 2. meesha qisadu ka dhacaysa waa xamar oo joogta bartamihii 1979 ilaa 80. waa markii magaalanimada Muqdisho maraysay meeshii ugu sarraysay ee ay margaadhay, kadibse nasiib darro laga soo riday. sawirka Muqdishadii hore ee Manafai hor keenaysa wuxuu dadka xasuusinayaa da'da cusubna baraya sidii ay u ekaan jirtay Soomaaliyadii burburtay. waxaa barigaas heegada sare marayay hawada dadka, hiyiraaca lacagta iyo u haliilka raaxaysi waali ah. ka daba orodka arrimahaas waxaa ka dhashay in lagu qamaamo xumihii reer banaan jiray. waxaa la bannaystay wax kastoo halis ku ah dalka, diinta iyo dadnimada qofka intaba. waxaa si xun u faafay fasahaad aanay u kala harin rag iyo dumar, dhallinyaro iyo waayeel, madax iyo majo. fasahaadkaas waxaa horseed ka ahaa madaxdii laga sugayey inay dadka ku hoggaamiyaan dawga toosan. qasadka sheekadu wuxuu ahaa qayladhaan ka digaysa cawaaqib xumada ka soo fool leh xumafalkaas ku socday, welina ilaa maanta ku sii socda hawli la yaab leh. Manafai waxay dibadda soo dhigaysaa dacartii la beerayey, dadkana badi ka daahanayd. waxay farta ku fiiqaysaa habdhaqannada khariban ee halista ku ah horumarkii loo baahnaa. habdhaqannada sheekadu ka digayso waxa ay u kala qaybsamaan 4 nooc oo kala jaad ah. nooca koowaad waa xumafalkii ka jiray xagga siyaasadda iyo maamulka dalka. waxaa hormuud ka ahaa hogaamiyayaashii dalka. waa qolada uu matalayo maareeya Jaamac Dhegi iyo odayada saaxiibadiisa ayaad ku arki doontaan sheekada. hantidii ummadda iyo hoggaankii gacantooda ku jiray ayay u adeegsanayeen marin habaabinta da'da cusub iyo u horseedka halaag ba'an. sheekadu waxa ay ka digaysay
burburka iyo cawaaqib xumada ka soo socda haddii sidaa lagu sii wado. waana tii dhab ahaan dhacday markii dhagaha laga furaystay digniintii noocaas ahayd. qolada labaad ee sheekadu la doodaysaa waa dadka weli maskaxdoodu ku qufulan tahay dhaqanno gaboobay oo carqalad ku ah horumarka iyo dhisidda bulsho casri ah. dhaqannadaas waxaa ka mid ah qabyaaladda iyo ku xadgudubka xuquuqda dumarka. waxaa kaloo ka mid ah amar ku taaglaynta aabbayaashu ka badbadiyaan muquuninta ubadkooda. waxaa tusaale u ah guurka khasabka ah. qaybta saddexaad waa dhaqanno soomaalida ku cusub oo ay dhowaan la soo baxeen magaalo galeenku. waa aafosidayaal ilbaxnimo la moodo ama ismaaweelis laga doono. waxaa ka mid ah isticmaalka maandooriyayaal uu ugu daran yahay qaadku. sababta uu ugu daran yahay waa asaga oo udubdhexaad u ah aafooyin ishuwan oo midibo mid u horseedo sida khamriga, xashiishadda iyo sinada ama gogol dhaafka. waa aafooyin halis ku ah caafimaadka bulshada, dhismaha qoyska iyo mustaqbalka qofkaba. sida sheekadu muujin doonto waxaa xilligaa soo ifbaxay dumar badan oo guryo lagu geerasheeyo u furta isugeynta ragga iyo dumarka. nooca afraad ee sheekadu ka digayso waa habdhaqanno qayb ka ah dabciga aadamiga meelu joogaba. waa hadimooyin ay had iyo jeer haaraamaan hal abuurka dunidu. waxaa ka mid ah beenta, munaafaqnimada, labawajiilaynta, xasadka, anaaniyadda ama nafjeclaysiga, hardanka ama yooyootanka ragga iyo dumarka, is-afgaranwaaga waayeelka iyo dhallinyarada, loolanka hidaraaca iyo casriyeynta amase isdiidka wixii hore iyo waxaa cusub, iyo xataa dooda qofka iyo naftiisa. faraqa u dhexeeya waxa qofku iskula hadlo iyo waxa uu dadka tuso ama maqashiiyo ayay maanafay dibadda soo dhigaysaa ama ay ka bixinaysaa sawir aan looga baran sheekooyinka ilaa iminka lagu qoray afka Soomaaliga. dhanka samaha, sawirrada sheekada sida weyn uga dhex muuqda waxaa ka mid ah cadifadda jacaylka. waxay si aad u qoto dheer qisadani u sawiraysaa dareenka iyo dadla dhaqanka qofka ay asiibtay eebada jacaylka dhabta ah. xanuunka macaan, xiisaha waalan, xiskadoonka siloon, nafhurka xaddhaafka ah, ka dhagala'aanta waanada, dhiiranaanta jariska tuurka ah, iyo dhulgariirka ku dhaca guud ahaanba nolosha ruuxa da'da yar ee ay dafto dabayl caashaq. dhan kale, sheekadu waxa ayna taabsiin doontaa dhinacyada suuban ee dhaqanka qoyska Soomaaliyeed. waxay dhinacyo naga tusi doontaa dhumucda faca weyn ee dhaqanka banaadiriga. waxayna hoga tusaalayn doontaa habdhaqankii ay isaga dayan jireen dhallintii berigaas iyo himilooyinkii ay lahaayeen ee badi lagu hungoobay. intaas iyo in ka badan oo isku wada saynsaaban ayay sawir ahaan noo horkeenaysaa qisada maanafay. sawirradaasi si ay dadka ugu duxaan, laabtoodana u doojiyaan, sheekadu waxay adeegsanaysaa farsamooyin ugub ah iyo aalado fan ah. waxaa ka mid ah murti, maahmaah, sarbeeb, duurxul, kajan, afmaldahyo iyo afshaxanno fara badan ahna kuwa caada ahaan lagu qurxiyo gabayga ama samaansada sida xarafraaca iyo humaagyada ama sawir afeedka. waxay kaloo adeegsanaysaa af Soomaali la isku hawlay in aad loo xulo, aad loo xardho, aadna loo koobkoobo. shakhsiyaadka ama dadka sheekadu ku socoto marba kii hadlayaa wuxuu ku hadlayaa afka lagu yaqaan dadka noociisa ah ama nooceeda ah. tusaale ahaan, maanafay iyo xubnaha kale ee qoyskeedu waxay ku hadlayaan lahjadda xamariga. kulmiye wuxuu ku hadlayaa afka dhallinyarada magaalo joogga ah. jaamac dhegey wuxuu ku hadlayaa afka waayeelka miyiga ku hadal bartay, halka uu cumarey oo ah wiil yar ku hadlayo afka carruurta xamar ku dhalatay. sheekatabiyaha guudna waxa uu adeegsanayaa afkii dhexe ee reer magaalka caasimadda iyo qalabka warbaahinta. waa farsamooyinkaas casriga ah iyo fikradahaas taabanaya dadka meesha bugta waxaa maanafay ka dhigay sheekadii ugu xiisaha badnayd uguna caansanayd sheekooyinka ilaa iminka lagu qoray afka Soomaaliga, sidaa ay ku tilmaameen xeeldheerayaashii akhriyey wax badanna ka qoray qisadan maanafay. intaas iyo dhegaysi wacan iyo qisada oo noogu bilaabata
barnaamijka kan ku xiga. halkaa haynoo joogto toddobaadka soo socda waxaannu idiin bilaabi doonnaa qaybta koowaad ee qisadan xiisaha leh ee Manafai.